sign in. Can hit this part. See, this will be alright. accountiga aan isticmaalahay waa accounti hore mar hore oo aan isticmaali jiray. accounti hadda ma isticmaalo. inta badan waxaa waaye alaabta meeshan aan ku iibiyeen waxaa waaye alaab oo aan kusoo fashilmay waaye. marka isku daya in aad alaabta aad meesha aad ku arki doontaan ha isku dayina inaad keentaan. alright, marka koowaad adi aad soo geshid halkan ayaad imaaneysaa. waa pageka waxaad arki doontaa marketplace, inta suuqa wax ku iibin kar aad ku iibisid, haddii UK aad ku iibisid, haddii Mareykanka aad ku iibisid, haddii Europe aad ku iibisid, inta ayaad ku arki doontaa. waka Mareykanka qaybtiisa amazon.com, amazon.ca waa tan Canada, amazon.com.mx waa Mexico. open orders, orderada macnaha hali isla markaas laga iibsaday oo weli aan la dirin. total sales of today, maanta hal ayaad iibisay. best buyers message, dadka qaarkood message ay kusoo dirayaan. total balance, inta lacag macnaha adi isla markaas aad bisha iibisay, waxyaalahaas ayaad arki doontaa. haddaba muhiimad waxaa waaye waxaad aadaysaa halkaas, saddexdaas maxaa la dhihi jiray, saddexda xariijimo ayaa ku dhufanaysaa. waxaad leedahay inventory, manage all inventory. no you had waxaad leedahay catalog, add product ayaa leedahay. marka product listing ayaad sameynaysaa. marka qaybtan ayaad imaaneysaa. marka qaybtan adi aad imaatid laba mid ayaad sameyn kartaa. haddii adi aad iibin haysid alaab mar hore meesha ay ugu jirtay aad ku dabaqaban rabtid, waxaad gelin kartaa UPC-ga, EIN, ISBN oo ASIN ayaad gelin kartaa si isla markaas aad ugu dabaqabatid. laakiin hadda targetka waxaa waaye alaab adi aad keentid in aad macnaha suuqa aad soo geliso. waxaad leedahay I am adding a new product not sold on Amazon. alaab oo Amazon aan lagu iibinin oo cusub ah ayaan keenayaa. meeshaad ku dhufanaysaa, wuxuu isla markaas ku geynayaa pages kale iyo waxaad u baahan tahay. halkan ayaad imaaneysaa. sidaas oo kale sida hadda idin sheegay, Amazon waxay leedahay different categories, qeybo badan. haddii aad aragtaan amazon.com, qeybo badan ayay leedahay. haddii aad fiirisaan maxaa la dhihi jiray TV, not that one, best sellers rank, best sellers ranks the best. sidaad aragtaanba qeybo badan ayay leedahay. Amazon devices, Amazon launchpad, appliances, games, automotives, baby all this waa qeyb oo macnaha suuq wax lagu kala iibiyo waaye. marka waxaad u baahan tahay markii wax adi isla markaas aad aad alaabta aad keenayso inaad ogaatid categoriga. haddaba meeshan ayaad ku dooranaysaa alaabta, qeybta aad rabta ayaad gelinaysaa. haddii aadan ka siinin qeybta ay tahay alaabta, meeshan ayaad ku raadin kartaa. waxaad leedahay haddii aad keeni rabto saacad watch ayaad leedahay. qeybta isla markaas saacadda ay ku jirto waa arkaysaa. marka meesha wuxuu ku leeyahay qeybta product clothing ayay ku jirtaa, shoes and jewelries, men watches, then wrist watch. haddana meeshan electronics sidaas oo kale smart watch waay. marka saacadaad si ay tahay. qeybtan haddana qeybta productiga electronics sidaas oo kaleed waxaa ku jiro smart watch bands. okay, waa xarigaha saacadda electroniga sidaas oo kaleed. inta badan waxay ku jiraan electronic waay. marka sidaas ayaad ku raadin kartaa. very simple and clear. select ayaad leedahay, directly waa ku create garaysmaa. haddii aad u baahan tahay adi oo maxaa lahay shortcut maahane nidaam kale aad isticmaasho aad rabtidna, waxaad aadaysaa halkan appliance iyo meesha adi isla markaas alaabta aad keenaysa ay macnaha ay leedahay beauty and personal care. qeybtaasaa kusii dhufanaysaa. haddii oo hair product uu yahay hair product ayaa sii aadaysaa.
haddana hair loss and products ayaa sid aadaysaa isla markaas qeybta ayada ay leedahay. marka muhiimadda waxaa ugu sii fudud sida hadda idin sheegay inaad meesha aad ku raadisid si isla markaas aad u fahamtid qeybta saxda ay leedahay macnaha. sidaana yeelaysaa watch ayaad leedahay qeybta isla markaas ay leedahay smart watch ma iibisaa ma saacadda iibisaa mase xariga iibisaa. aan kasoo qaado saacadda iibisaa marka you go to this directly select ayaa leedahay. haddii aad dooratid micnaha waxaa way qeybta alaabta loogu taligalay ayuu directly kuu geynaa macnaha. okay halkan waxaa waaye marka waxaad u baahan tahay titleka inaad gelisid. waxaan filayaa qeybta markeedii aad joogtay in aad mar hore aad qof Fiverr ku jiro aada la soo hadashay oo product maxaa lahay search engine optimized title in lagu soo sameeyey, in lagu soo sameeyey product description, in lagu soo sameeyey bullet points, in lagu soo sameeyey intaas ayaan filayaa marka. haddaba meesha markaad imaatid inta kale waa copy paste. product title aad lagu soo sameeyey product title waxaa loola jeedaa aan kasoo qaado tusaale health and household, kan aan kusii dhufto product titleka waa midkaas marka kan aad aragtaan that's a product title. sidoo kale descriptionka ama bulletka lidin sheegahay waa kuwan aad aragtaan. description ayaa jiro oo isla markaas alaabta sharxayo. dadkan illustration ay isticmaaleen oo aragtaan sawir ayaa la isticmaalay. illustration oo sawir la isticmaalay. description leewaay asna naftarkiis sidaas. qoraalkan aad aragtaan waa description. waa kana qeybta ugu muhiimsaneed product descriptionka kan waay marka. waxaa lagu leeyahay remove plugin and experience. alaabta isla markaas waxay qabanaysa ayaa meesha lagu tilmaamay. marka kan oo kaleed waxaa kusoo qoray is also search in optimized micnaha waxaa loola jeedaa ereyada keywordka la isticmaalo ayaa meesha ku buuxo. marka waxaad u baahan tahay isla markaas inaad titleka aad haysatid. titleka oo mar hore lagu soo sameeyey inaad haysatid waa imaaneysaa. ani waa isku soo copy gareynayaa midkan just for example purposes, laakiin waxaan filaya inaad haysatid. brand name inta badan dadka brandiga ay soo horumarsiiyaan brandiga Philips. product id haddii aad rabto micnaha intaad ka fiirin kartaa. waxaa leeyahay product external id is a barcode and the correspondence to be used to identify the product. product id waa barcode. waxaan filayaa in barcodeka video maanan ku sameynin laakiin barcodeka waxaa lagu soo iibsadaa GS1. koorsada ani aan sameeyeyna macnaa waa dhameeyey is well explained. waa idin lasoo qeybsan doonaa dhinaca comment waqti video ugu dhamaad ayaan soo dhigi doonaa si aad u aragtaan. barcodekaas ayaad soo iibsanaysaa. barcodeka waa master. qeybtan waxaa waaye mala dhaafi karo. waa isku dayay in lambaro oo macnaha adi oo isu weedaarsan oo fake inaa isticmaalo laakiin ma soconayso. waa in barcode saxa la haystaa si isla markaas oo maxaa la dhihi jiray oo alaabtaas loo listi gareeyo. barcodeka waa lambarka itemada ama alaabta kala bixiyo waay marka. qofka alaabta uu leeyahay ayuu macnaha matalay. adduunka oo dhan nin kale kula lahaanaya ma jirto. haddaba waa in la haystaa lambarkaas. way adag tahay. okay let me see. qeybtan haddii aad imaatid waa inaad doorataa ASIN, EIN, GTIN. marka waxaad u baahan tahay inaad UPC aad doorato universal barcode. okay continue dheh. well, this product does not have a brand name. okay alright laba aan ka bedelo markaas
haddii uu noo qaadanayo. Continue. Request for approval. marka wuxuu ku leeyahay approval codso alaab qaarkood u baahan tahay in isla markaas. Okay, haddana waa aan fahmay. waxaa jiro alaab qaarkood aadan ku iibin karin Amazon adigoo lagu soo approve gareynin. waxaana ka mid ah alaabta loo isticmaalo baterigi wadato, alaab oo kii kale wadato maxaa la dhihi jiray battery, alaab inta badan liquid wadato ama biyo wax saas oo kale ku jiro ama wax mercury ah. waxaad u baahan tahay kooda intaadan list gareynin in approval aad geliso. marka waxaan isku dayi doonaa inaan bedelo. Amazon waxaa waaye waa detect gareyna isla markii qeybta uu leeyahay kii kale. marka rechargeable kaas aad aragtaan ayaa inta badan macnaa dhibkeena. si kastaba ahaato title kalaan isku daya inaan isticmaalo. okay, let me see wax kalaan isticmaali karo. sidaas oo kaleedna waxay ku xiran tahay qeybta adi waxaad ku iibinaysid. sidaan filayo qeyb waxaan doortay oo inta badan macnaha loogu bahnaanayo in approval aad hesho. let me say watch. sidaan filayo saacad nin oo approval i weydiinaya ma lahan. okay, let me say men's watch. alright, okay, magacana aan ku gaado. okay, category aan ku jirno maxay category waxbaan soo dooranay. waxaa waaye wuxuu leeyahay category men watch men. okay, meel saxaan soo dooran indhaasi. marka continue dheh. this product does not have a brand name. okay, this product does not have a brand name. it's generic. continue. alright, wuxuuna keenay qeybta kale product description-ka. waa aragtaan qeybtan ayuuna keenay product description-ka. product description sidaan idin tilmaamayba waa description-ka. waa midkaan aad aragtaan. let me show you. kan waxaa loo yaqaanaa bulletka. waa arkaynaa hal ayaan u arki doonaa. the second one waxaa waaye where's the description. alaabtan product description ma lahan balse product description-ka maxaa la dhihi jiray. let me see another one. okay, dadkan product description-ka ay isticmaaleen waa kana. waa description-ka alaabta isla markaas uu tilmaamayo ayaa macnaha description loo yaqaana. alaab kasta description ay leedahay. dadka qaarkood they don't do it but laakiin waa muhiim in la sameeyo. product description-ka ayaa meesha isla markaas ku paste garaynaysaa. waxaan filayaa at this point aniga waa soo copy garaynaya. tusaale ahaan waaye in qofka Amazon maxaa lahay Fiverr aad kula hadlayso inuu kusoo sameeyo bullet pointiga. bullet pointiga waxaa waaye saacadan bullet pointigeed waa intaan 1 2 3 4 5 taas waaye. bullet pointiga ayna sidaas oo kaleed waa in lagu soo sameeyo waaye. waa imaanaysaa waxaa leedahay bullet point 1 add another one add another one add another one. ugu yaraan waxaa beela inaad haysatid ilaa 5 xabo. 1 2 3 4 hal xabo dheeraad waa ku dari kartaa laakiin ilaa 5 xabo ayaa ugu muhiimsan inaad haysatid. haddaba marka title-ka aad sameynaysid. okay, qeybtaas waxaan filaa in la idin soo sameeyay. haddii directly aad u baahan tahay waxaa waaye ilaa iyo waxaan u malaynaa ilaa iyo 125 erey ayaa loogu talagalay inaad isticmaashid. sidaas oo kale bulletka markii aad sameynaysidna ayadna sidaas ugu yaraan 250 characters micnaha xaraf ayaa loogu talagalay in lagu qoro. marka intaas oo dhan waxaa waaye ma sameynaysid
qof takhasuus leh ayaa loo baahan yahay marka in kusoo sameeyo. sidaas ayaad u sameyneysaa. item name, sport watch wixii kale waa dooranaysaa. model number waxaa leedahay kan wax saas u dhib badan ma ahan. brandiga magaciisa la waxeereyaa kasoo qaadane gh camal, ka bacdina lamber isaga dare, wax saas u muhiimsan ma ahan. haddii aad rabto inaad ogaatidna waa ka provider manufacturer model, adiga magac u sameynayso provide manufacturers model number. haddii brandiga uu yahay gisali camal waxaa leedahay gh ayaa soo qaadane 001 camal, alaabta koowaad oo gisali ay keeneen camal waay. okay, manufacturer waxaa soo saaray inta badan company kuu soo saaray waa ku qori kartaa, ama waxaa waaye company kale ayaa iska qoran kartaa. waxaan iska soo qaadaa ani Casio inay tahay. markaas waxaa leedahay finish and save. waxaa lagu leeyahay there are 40 items that require attention, press okay. alright, intaanoo dhan ayaa loo baahan in la buuxiyo ku leeyahay. quantity 1, price halii aad ku iibin rabtid 20, qiimaha suuqa aad kusoo gelinaysid. condition waa new, OEM, I will ship this item by myself. meeshan waa meesha aad ku kala bixinaysid haddii oo Amazon FBA uu yahay ama by merchant. by merchant waxaa loola jeedaa alaabta adigaa guriga ku taashaa, haddii qof soo codsado adigaa guriga ka diraysid, boostadaa geynaysaa adaa diraysid. ama haddii aad rabtid Amazon howsha oo dhan inay ku qabato waa fulfill by Amazon. wixii hadda aad baran haysaan waxaa waaye fulfill by Amazon, kaasaad aadaysaa. waxaa leedahay fulfill by Amazon kanaad dooranaysaa. marka waxaa waaye alaabta Amazon storekeeda la geynaa, howsha oo dhan ayagaa kala tuurayaan. marka boxka la gelinaayo, kartoomada ayagaa keenayaan, bubble wrapkii la gelinaayo ayagaa keenayaan, maxaa la dhihi jiray diritaanka ayagaa qaabilsan. adi waxaa waaye lacagta account le kugu soo dhacee. marka nidaamkaas waa. marka haddaba sidaas ayaad yeeshay. then the next thing, save and continue. okay, 3 suuqa wax ka iibisaa meeshaan. waxaa waaye lacagta kii kale waa bedeli kartaa, balse I don't want to do anything of that, it's not requirement, ma loo baahno. okay, 36 items are left. okay, isla markaas qaybta ku harsan asaa ku kala sheegay. marka all in all waxaad u baahan tahay qeybahan inaad buuxisid oo uu ku sheegaya. hadda qaybta intaana soo dhameynay product identity, vital information, offer, product details, variation ayuu ku leeyahay, safety and compliance waa ogsantihiin. sida hadda aan idin sheegay alaabta kooda aan gelinayna lagu soo diiday camal, anything like product maxaa lahaye battery wato, koronto wato, waxyaalo af leh, waxaad u baahan tahay kooda in lagu soo ogolaado in aad iibisid. marka qaybtaana sidaas oo kaleed waay, safety iyo waxyaalahaas ay qaabilsan tahay. inta badan waa buuxinaysaa sidaad aragteenba. markii aad buuxisid inta badan waxaad u baahan tahay meelaha asteriga fuulo, xidiga uu fuulo, intaasaa lagaa rabaa, inta kale uma baahnid. requirement waxaa waaye qaybtan intaan kale uma baahnid. maxaa kale qaybtan waa u baahan tahay, intaas ayaad buuxinaysaa. markii saasaad u buuxisid haddana qaybta kale ayuu kusii wareejinaa imageka. sidaas oo kale imagada waa soo gelinaysaa. markaad soo gelisid shipment ayaad diyaarinaysaa. marka product listing sidaas ayaa loo sameeyaa. alaabta markii ay saas ay u gasho save ayaad leedahay, waa kuu save gareysmaa. ka bacdina alaabta waxaa lagu leeyahay live on Amazon way ayaa lagu leeyahay. marka sidaas ayaa product listing loo sameeyaa, ayadoo detail oo faahfaahsan waxaad ka heli doontaan koorsada ani aan sameeyey. marka haddii aad su-aal aad qabtaan waxaan fiirin doonaa haddii ay wax su-aal jiraan si aan uga jawaabo. let me see. waayahay commentiyaalkiin ma arki haya insha allah. haddii su-aal aad qabtaan fadlan
waxaan isku dayi doonaa su-aalihiina kulli video kale inaan soo sameeyo aan ugu soo jawaabo. haddaba isku daya macnaha inaad su-aalaha meesha aad soo dhigtaan si isla markaas aan idinku soo jawaabo. marka product listing sidaasaa loo sameeyaa. videoyada kale waxaan fiirin doonaa sida oo maxaa la dhihi jiray loo sameeyo shipment. qeyr ayaa idin rajaynaya. maca salaama ilaa iyo oo sabti dambe.